waxaa ku fahmi karaa inuu fahmay in ardaygaani uu wixii sharxo waxaa ku fahmi karaa inuu soo gaabiyo waxaa fahmi karaa ereyadiisa isticmaalo laakiin ma kula tahay inuu fahamsan yahay haddii uu sheegay keliya inuu dabaqi karo jumlo geli waa tadbiiqid waa tadbiiq waa jumlo geli wixii qaldan sheeg waa tadbiiq qaacidooyin uu soo barto oo xafidsanaa buu ku dabaqayaa soo maasaas buu ku dabaqayaa marka casharka horta meesha u horeysa waa ujeedada haddii ujeedadu halowdo waa dhamaatay waxaa ku xiga istiraatiijiyada casharka iyo dariiqada u dhigi lahayd muhiimadda dadka dhan in badan macalimiinta aan maaragtay casharku ma aha buugga kasoo guuri ardayga buugga tagiska kee buuggaaga maaha casharkaaga waxaa dhici karta buuggaagaba inuusan wadanba casharki oo meesha ku yaalo waxaa dhici kartaba inaa soo gaaban laakiin ujeedada casharka tallaabooyinka aan qaadayo xisada hordhac marka aan soo galo waxaan hubinayaa ardadu in ay casharkii shala fahmeen aniga oo weydiinaya su-aalaba xisada markaan soo galo ardada waxaan u sheegayaa wax ay kusoo jiidashale kadib waxaan bilaabayaa kadib waxaa la sheegaya istraatiijiyadu waa qodobada a qaban lahayd hadhow haddii qodobalka kugu yimaado dhib ma leh ardada waxaan u sheegayaa macalin baa wuxuu yidhi macalin aada u wanaagsan oo fariid ah waan aqaan meel waxbarasho maalin macalin uu ka dhigayay asagoo arday ahaa jaamacad dhiganaya waxaa la geeyey meel oo tadriib ah oo fasal ayaa la geeyey arday carab ah ayaa loo geeyey wuu u sharxay ismi waa maxay ismi wuxuu yidhi waa ismi insaan xayawaan nabaat jamaad soomaha ismi wakayra dalik iyo wax kale macalinka waa la ardayga gacantaaga wakayra dalika maxaa ka mid a insaan waa sheegtay xayawaan waa sheegtay dhir waa sheegtay jamaad waa sheegtay maxaa ka wakayra dalika haddii waxba kuu diyaarsanayn wakayra dalika waa meel bay ka baxaysa macalinka aada u maskax badnaa fariid ah wuxuu yidhi waxaa ka mid ah kaljini waalmalaa'ikati magacyo badana iska jira mogta xataa waxyaalo kaloo runta ixtiraamka magacyo ma jiraan oo kale oo aan maxsuusaad macnawi ahaa jiraan haddii ay waxa isugu kaa diyaarsanayn wakayra dalika ay kuu joogeysaa hadhowna ardayga laba xaba qor markaad tiraahdo wuxuu soo qorayaa alinsaanu iyo wakayra dalika mid kamida waa ilan iganay wakayra dalika haddii istraatiijiye aa wadato taqdiid aa wadato qorshe howleedka aa qabsanayso qodobku ugu qoran yahay halkaa marka madaxaasa weydiinaya wixii kaa hor yimaada dhib male kadibna waxa su-aalaha aada weydiin lahayd casharka qiimeynta ardayga maxaan qiimeynaa ujeedda hebel in la fahmay in kale ujeedda hebel in la gartay xeerka hebel ii sheeg ma sheegtay xaggee lagu dabaqaa xaggee nolosha looga dabaqaa waa midda aan aniga rabno inaan xooga saarno waxaas ardaygaa baranayo in la helo dhaqangelinteeda in la helo hadda biyahan la cabo fysigiska marka la dhigayo hadda qaarkood biyaha waa iska bubuuxaane waxyaalaha qaarkood biyuhu meelahan ku joogaan cabitaanadu ma dhamaystirna arday fysics loo dhigayo su-aal baan weydiye waxaan idhi cabitaankan meeshaan barka jooga muxuu yahay qoladahani ma qolo oo maaragtay faqiir miya ma qolada maxay ahaayeen baalka naga baraysay waxaa barka koobka lama barayo shaha buuxi koobka qalbigu walhanayaa mar hadduu qaar madow yahay qarka jooja maadhihin guri qaadan baa jire ninkii lahaa shaha maxaa u buuxin weyn ardadii casharkii way qaateen maalintaas dhigteen waa inay ka jawaabaan waxay qaateen marka ay biyuhu barafoobaan oo ay biyuhu gaaraan 4 digrii markay gaaraan biyuhu meeshii markay barafka sii socdaan baraf sii dhaafira biyuhu meeshay urur lahaayeen barafka marka way sii fidayaan sidaa darteed meel baa loo baniyay ay ku fidaan haddii kale dhaladu way jabaysaa tadbiiqeedu waa inuu qofkaas yaqaan markaan ka hadlayna maxaa fiilooyinka korontada loo dabciyaa fiilooyinka telefoon maxaa loo dabciyaa haddaan dhehayno cirka wuxuu buluug u noqday maanaa kownkan iyo dhan waxyaalaha aan sharxayno waa inay asbaabta shay keensataa macallin kastoo maado dhigayo sababta asbaabtiisa waa laga rabaa ardayda qaarkood maasha allah
way fiican yihiin ardaydu waxay u baahan yihiin in wax loo sheego. arday dugsi jaamacadda dhigta baa waxaan imtixaanan ka qaaday oo wuxuu ahaa imtixaan oo oral ah, aad buu uga jawaabay 9aad uu dhaafay. hal su-aalaan weydiye, waxaan ku weydiiyay adeer carabiga ma taqaanaa? ma aqaan. qur-aanka ma taqaanaa? ma garanayo qur-aanka ma garanayo. maskaxdana waa le waxaa iri weligaa qof ma kula hadlay luqad aadan aqoon qof ma kugula hadlay? waa dhacdaa bir hadduu ila hadlo qof kale aan dhaha ii macnee googalan gelina waa tarjumaa. ma dhacdaa iri weli inaad cid la hadasho adiga aadan aqoon, luqad aadan aqoonaa kula hadasho qofka. maxaa macalmaanay waa ciyaarisa kula see ugu hadli karaa qof inaan luqad ani aanan aqoon aan ugu sheegaya wax maba aqaane. ka waran hadduu qof xurmad kugu leeyahay yani ka waran iyo sharaf agtaada ka leeyahay, macquul ma aha. aabbahay hooyada hadduu ka sarreeya ka waran qofkaas uu ka qaalisan yahay. salaada ma tukataa baa haa. qur-aanka ma akhrisataa haa. ma fahamtaa waxaa sheegayso? aqaan bay waxaa sheegaa, waa iska sheegaa. ilaahay waa iskala hadlaa, waxaan sheegayna ma aqaan. qur-aanka waa akrinaya ma fahamsan, waa iska akriyaa. arrintaan ka war ardayga hoos u fiiriyey, cabaaru aamusnaa, uu isbedelay shucuurtiisa, waa baxay. imtixaankii semesterka dambe uu ii yimid, imtixaan baan ka qaaday, uu baramood sidoo kale fasaxantaa ere maya su-aashii weydii kulahaa maalintii tii hadda weydii kulaha go-aanaan gaaro inaan ilaahayd mar damba kula hadli waxaan aqooni. rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana mama aqaan waxay ahayd ilaah hooyaday dil aabaheena ka reebin baa miyay ahayd? ma aqaan. hadda kulaha macalin waxaan bartaa carabiga meel fiican ka bara, tarbiya islaamkana waa maanta ilaahay waa la hadli karaa, waxaan kula hadlo waa aqaanaa. ardayga waa bedeli karnaa, ya dhaqanka waa bedeli karaa ardaydeena, laakiin ujeedadeenna waxbarashada inay ka mid noqotaa. inta xisada lagu jiro waxaa loo baahan yahay ardayda nashaad iyo wax inay qabtaan. soo lama rabo xisada maanta o dhan macallin iska taagan oo sharxaayo meeshii taagan iska hadlaayo keligiis lama rabo. ardayda ka hadashii, ardayda ka qaybgeli su-aalaha qaybtooda si ha kula wadaan casharka, weli iyaga ka bilow mararka qaarkood si ay jawaabta iyagu u keenaan. haddii iyada laga bilaabo ardayga waxaas maxaa waa intuu ka yaqaanu sheegaa, mid kalaa ku daraya kadib waa la isla samaynaya. marka casharka ardayda galaas aamusan oon dhaqdhaqaaqayn shib maaha. waxa aan rabna saas maaha. arday shaqaynaysa oo wax shaqaynaysa oo su-aalo isweydiinayso, jaanis usi xataa inay weydiiyaan. ardayga markaa su-aal weydiiso hore ka weydiiya, waqti sii uu ku fakaro, ha ka mid noqto waqtigaaga. galaas laakiin lale walaa galaaskaas shimbiri ma nuuxsanayso, waa galaas isku toosan ma aha sax. ardayda inay wax ka shaqeeyaan oo qabtaan oo wax ka qadeeyaan. hadda maalan dhaqamada ardayga aan casharka ka bari karo waxaa ka mid a maalinta aan kan la ii keeno biyahaan cabay oo aan waxaan ka fiiqo markuu arko anoo tuuray, soo ma dhammaanin qashinkuma tuurani. hadhow arday baa qashin gur tiishkii waxaa isticmaalaysa gacmaha iska tiraysay waa meel ku tuurtay, ardaygaas waa qaatay. ninkii nadaafadda dhigaya waa laga rabaa tadbiiqi nadaafadda asaga inuu ka muuqdo. marka waxaa qodobada istiraatiijiyada aakhirka waxaa ah qiimee ardaygaani wixii inuu fahmay. qiimeyntuna waxaa weeye inaad ogaato dhakhtaraa daawo kuu qora wuxuu ku yiri igu soo noqo maalma kadib, soo maaha in maxaa iska kaa bedelay inaad fiiriso. gaar ahaan galaaskaaga marka aada maamulaysana macalimiinta waxyaalaha ku saacida inay galaaska maamulaan waxaa ka mid a macalinka inuu maadadiisa ka adag yahay. maadadaada si fiican ma u taqaan, maadooyin kale wax ma ka taqaan, dabeecadaadu say tahay, ardayga ma ixtiraamtaa mase kulkuleelaa ku wadaa, dictator baa tahay iyo keligi taliye, eraya layga daba oran maayo, arkaya anaa iska leh miya? waraa aamus ma hadli kartid, istaaga, bax, ifcal, taa samee, tana sameyn ma aha. meel awaamir ka socota maaha, meel wax wadaag ka socda wey.
qofkii qalad samey qofkaad aragto inuu sheekaynayo qalaad sheekaynayo adoon wax kala dhihin waxaad tirahdaa qofka mashquulsan waxaad tirahdaa magacaagii muxuu ahaa markuu kusoo fiirina casharkaada iska wado arrintii aan rabay hadaaye 6 qodob aan sheegayay muxuu ahaa qodobkii afaraad markuu isdiyaariyo ujeedadu ma ahayn anigu inuu qodob afaraad sheego inuu soo jeestay ahayd ka soco laba gadaal ka sheekeynaysaa aragtay see wax yeelaysaa laba gadaal ka sheekeynaysaa yaa qaab su-aal dhex dhig qaab kusoo jeedisa adaa rabtaa adii wax aqaabaya ma ahid qof kasta maanta dhan keligaa baa soo haray galaaska maamulka xafiisku joogaa adi afara soo saarta kaas afar hadhow waxaad leedahay waal kuweygii maxaa loo soo celiyey adi kuwaaga la ogtaha baan kuwii kale yaa kula og adi afartaadi la ogeyd maho meeshay buuxaan galaas kalaa ka samaysmay xafiiskii banaanka galaas kalaa ka samay min afara iskoolkiina saa u dherar ka badan bilbal afar soo saar iyo min 2 xisadaas soo buuxsan ardada qaarkood xilliyada qaar marka la marayo ayagaa fawdo sameynaya markay daalaan nashaad geli galaasaan soo galay hadda ka hor aniga waxuma dhigeyn laakiin xisadii macalinka waa ka maqnaa 5 saac xoogaa la marayaa galaaskaas soo galay markaan soo galay ardada hal mar waa la istaagay waxaa la rabbi salli cala alxabiibi muxamed وعلى الآل من الكرماء ورما إلى قادان قال اسم قادر ربي صلي على الحبيب محمد واسك امس دمستين بركي دمستين واسك فريستين حين ربا نتقنا إن الحناقو إن إلى هذا بحا بس كبحا ما انتهى بحا ودرواق اللومي إري أرقي ميشو جريه درواق اللومي إري ميش أرقي جريه waxaan ku iri alla maanta nasiib badanaya waligii intaan galaas soo galay saan kor la iba soo dhaweyn maanta dikri salaam baa maanta si la soo dhaweeyay abitaan la iba soo dhaweey soo dhaweyntiina ma sha Allah horta dam wala dami warkii meesha u socday hadaa tiraado maxaa dhacay mid wax ku leeyahay marka dambe salliga ma diidantahay nabiga akhboortiyooriina loo keenay goolahayihiina قولها مركي دالين ربو هو جاب كتاب قرآن كلا soo baxay kadibna إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قول كانوا عرش حسب مين هيدا ولا قراعة ده أم حلو قراعة قرآن بآخري ما هو بتهم بقى القرآن لسه قراعة على آخري أنا وحنا مخرج القرآن آخري ولا لسه قراعة جري ما أنت قرآن ما لوجه وقرآن مش بدون الرواية إجاه بيعني وما واحد رتام وحليه ما معناها القاعدة بس وافقنا هي واحد مودهنا ماشي عيارة قرآن لقما آخر كرا وقاعد تيكرنا ماشي وحبرشة لقما عيارة كرا وقاعد يدنا قدم كاسر ماشي قرآن واحد بريب اللي قال ما يقول أنا ما علمك است قرآن آخرنا وقاعد لا ما تقول هي نقول ما يدين قرآن آخر سأقول كهرباء قدم كاسر اللي فهمنا هي waxaan weydiinaa qofaa salaad tukaday markuu salaad tukado Allahu akbar faatixadu akhriyo markuu sir rukuucay inna anzalu ku akhriyo sami'a Allahu ya ayyuhal ladina amanu sujuudina wuxuu ku akhrinayaa suurad kale quraan salaadiisa ka warrama waxba kama jiraan quraan ku akhriyo meesha quraan baa loo rabaa quraan hatta qaar mid wuxuu yiri sujuuda laba aqal quraan lagu akhriyo waxa ay qofkaas daacad waxa ka warrama quraan ka akhriyo wax kale ma aqoon waa inuu bartaa waa هي هذا واحد سميسين كور رمايل مركب واحد آخرين يسين لقافة يقول واحد أكون المرة ذكر ما يقول فوضى أكون فوضى واحد ذكر ما يقول واحد أكون فوضى قف قراء بورتيري القراء وأنزل جلاس الواقع أيها جاري كرقانك لقى ما تبى أرضه لما هذا سوسس معها فهم سي إني واحد لكن هذا ترى هذا اللي تكون تاجو محمد عليه